naba u dirsataan furqaan travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyada jeclaystay asaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada bal anigu waxyaalahan aad isoo cajibiyay oo la yaabay waxay ahayd saddex qodob oo aan marna dhowr jeer sheegay waxay ahayd cumraan u soconay cumradii aan gudanay iyo cibaado dheeri ah iyo caanageel aan soo dhannay oo igu dambeysay muddo hore furqaan travel yaan la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee atol oo ah mid bulshay meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin hayaa fariin cusub oo waa tuma waa sharikadda duulimaadyada iyo tikadhada ee furqaan travel ee ku taalla bartamaha Birmingham oo idinkugu qidmaynaysa si la yaab leh hufan oo wanaagsan oo aad loo jeclaystay dalkii hooyo dad booqanaysa iyo dhulka barakaysan Makka al-Mukarrama Madiinatul Munawwara dadka doonaya inay xajka iyo cumrada tagaan waxay ugu tala galeen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantoodba 5 star ay yihiin Royal Rayyan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib taambuugada ama teendooyinka casriga ee VIP da meel kastoo aad joogtaan yaa la moogaan inaad qidmadiina iyo hawlihiinaba u dirsataan furqaan travel intii horay uga qidmaysay aad u jeclaysatay inta kalena jeclaysan doonaan anaa jeclaystay iyada jeclaystay asaga jeclaystay kulligooda jeclaystay adinkuna jeclaada bal anigu waxyaalahan aad isoo cajibiyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد داودياشا قيمة بدن وبرنامج كان برا صحابي نقل الصعود دافع الدنيا ولا لنسود هذا وأنا برنامج كي آلابا أن كوقابا ديجي تاريخ لوتكي صحابة الكرام رضوان الله عليهم سيدا انت بدن نوغا براتين برنامج كان وحا سبونسر جري أما برنامج كان u suurageliyay ummadda Soomaaliyeed inuu shaashada maartay ka daawadaan shirkaddan Furqaan Travel Hajan Umra alaaba marka waxaan ku soo qaadanaa shirkadda Furqaan bishii mar baan maartay ku casuunaa ayadoo maartay ka warbixiso goobihii barakaysnaa ay shirkaddu dadka geysay waxaa maanta nala fadhiyo stuudiyaha Kalsan TV directorka ama mulkiilaha shirkadda Furqaan Travel Hajan Umra عبدولي عيسى يوسف عبدولي كسودو برنامجك برا صحابي شيخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شيخ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركو قول رئيسو إلهي سبحانه وتعالى أيام هاد أردن إسكاله الله سبحانه وتعالى لو suurtageliyay caaway oo maaragtay habeen sabti ah inaan ku kulanno TV-gan caalamiga ah ee Kalsan oo mar walba bulshada u soo daayo waxyaabaha ay maaragtay ay ka faa'iideysan karaan ama faa'iidada u leh sidoo kale waxaan salaamayaa walaalaha barnaamijkan si toos ah ugu taxan bara saxaabi oo maaragtay ka barta diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo saxaabado maaragtay saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam inay siiradoodii bartaan adiga oo Sheekh Axmed waa ku mahad celinaya sidoo kale maadaama aad meel dheer ah ka soo safartid maalin walba Birmingham oo sabti ah oo halkaan u imaadid inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dacwadiisa ka bixisid Furqaan Travel iyo dadka maaragtay ka shaqeeyo iyo staffka anigoo afkooda ku hadlayana waxa anaga waajib nagu ah barnaamij walba oo khayr ah oo ummaddu ay ka faa'iideysanayso khayr inaan ma aan ka qayb qaadano soo xagarta ma qofkii maaragtay khayrka ka qayb qaatana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku dhawaa barnaamijka aadna oo mahadsantahay Sheekh Axmed Ilaahay subhanahu ha ku barakeeyo Abdulwali Ciise Yusuf بالحقيقة maanta way ka duwan tahay ama uu ka duwan yahay barnaamijkii hore waxaan aagaa inta badan markaan Abdulwali kale soo fadhiisano ama uu nala soo fadhiiso TV-ga oo nooga waramaa meelihii ay maaragtay shirkadu dadka raacay macaamiisha ah ay tageen iyo waxa ay la soo kulmeen iyo waxa markaas sanadkan ay umada u hayaan Abdulwali maraan maanta iswareysanaynay wuxuu iiga raaysa oo maaragtay lama filaan ah inuu yiraahdo Cabdi Axmedow maadaama barnaamijkan annagu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartay naga tahay inaan umada Soomaaliyeed ay ka faa'iidaan oo ay maaragtay loo gudbiyo
barnaamijka waxaa ka wada kitaabka suur mulxeed saxaabi bara saxaabi caawa waxaan jeclahay shirkadda furqaan inay over samayso over oo loo yaqaano inay samayso discounti ama maxaan idhaahdaa dhaqaaleyn macaamiisheeda dhaqaaleyn aada u fara badan meeshii sanadkan khaasatan shirkadda furqaan waxaa hadda meesha ay kaga muuqdo shaashada ka arkaysaan December 16 habeen in maaragtay loo kala qaybinayo cumrada inay shirkadu meesha lacagta ku qoran lacag ka jaban ee caawa halkan uu kaga dhawaaqi doono mulkiilaha shirkadda furqaan Cabdiweli oo jeclaystay inuu ummadda Soomaaliyeed khaasatan dadka barnaamijkaana ku xiran iyo cidii ka faa'iideysanayso inuu caawa kaga farxiyo oo yiraahdo lacagtii 1500 ama 1400 waxaan qiyaasayaa in inta ahaydba in uu yiraahdo intaasaan dhimayaa cidii caawa ka faa'iideysan doonto Cabdiweli arrintaas oo marka hore intii caawa oo waliba si lama filaan aad iga maaragtay igu sheegtay bal ugu celi ummadda Soomaaliyeed Sheekh Ahmed Allah ku barakeeyo sideedaba barnaamijkan xajka iyo cumrada waa barnaamij cibaado ah ummadana aad iyo aad waxaan ugu boorinaa mar walba inay ka faa'iideystaan laana noloshan inta aad sii noolaanaysid iyo waqtiga inta uu ku saamaxay lama yaqaan sida oo kale dadka annaga hadda wadankan ku nool kale ama wadamada Yurub jaanisiyada ay haystaan dadka Soomaaliya joogo ama wadamada Afrika ma haystaan marka dadkii maadaama ay adduunyada ay ku mashquulsan yihiin in Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkiisa la soo booqdo annaga lafteena ajir baan ka helaynaa dadkii inaan wax ma aragtay awoodi karaan inaan u sahalno hadda package baa jiro insha Allah package aan qaadayna December oo dadka ugu talagalna xilliga iskuulka ciyaalka ay xiran yihiin in dadka la geeyo beedka Ilaahay package-daas annaga sideena hoteelada 5 star ka dadka geynaa hotelka ugu yar oo dadka aan geenayno waa 4 star 5 iyo 4 kama dhacno marka package-kan annagu waxaan ugu talagalnaa markii hore 1500 in dadka laga siiyo laakiin caaway maadaama aad barnaamijkan aad iyo aad qiimaha u badan oo waliba aad ugu magac dartay bara saxaabi oo saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam in taariikhdooda la barto waxay keenaysaa in qofka diintan dhibti loo soo maray iyo saxaabadu wadciga ku noolaayeen caaw marka offerka aan bixinayna package-ka 1500 aan siinayna caaw waxaan rabaa hadii ay dadkii barnaamijkan ku xiran ay ka faa'iideysanayaan inaan 1200 ka siino oo 300 loo dhaafo discount loo sameeyo marka insha Allah qofkii calaf u yeesho umba بإذن الله تعالى بكفاءة ديسرة مركا تلا هوتيل 5 ستار اللي جينا يا محا هوتيل كي محرمك ودوي هاي محا وكجد وين نقف حكوا أنا عبادة أصعدة محا عدان عبادة أصعدة عسكري على هوتيل كان دقيق إن بالفايف ستار كتلاقي بالنص والفايف ستار هان تسوق سوية هوتيل هذا هرت الشيخ أحمد أنا قدرت كأنجي إنه سيدا بحرمك هوتيل هذا كسهر جيد واي أما ها تميت كساعدة أما هوتيل هذا كدم مية حرمك أجره إلا 7 دقيقة 5 دقيقة 6 دقيقة هوتيلك إن شاء الله هوتيل هذا أن هرت عمرة أنا جا مركان لندن كبحنا ديارنا وحراعينا عالمي إدتك أو يقانن جولف إيرلاين أما طيران الخليج سيد عفك عربي قالوا قدوه لندن بحرين ديارات مركان تجنو لبا صعب أن ترسيد كنا هاي بحرين واقع تجينا مدينة توسوق تجينا بحرين تو مدينة dadku marka ay Madiina tagaan halkaas waxay ku nasanayaan 7 bari hotelka Madiina Zamzam Bulman oo qof walba uu garanayo oo 5 star oo xaram ka soo horjeedo quraacdi baa ku jirto intaan Madiina joogno maalinta 22ka December dadka waxaan u kaxaynaynaa ziyaaraadka waa maalin sabtiya loo waxaan ku aadinay maalin sabtiya sida sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam maadaama uu soo booqan jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalmaha sabtida ah مسجد قباء maalinta ziyaaraadka ay aadayaan ilaa iyo 26ka bisha ay Madiina joogaan ayagoo cibaadadoodii iyo hotelka quraacdoodii subaxii buufeedka ahaa kula 26ka waxaan ka tagaynaa ma aragtay Madiina waayo hadii aad xisaabisid 18 kan tagaynaa waata khadka waxa leeyahay qof baa ku jiro maadaama dadka ay maqleen ma sha Allah shirkadda Furqaan baa caawa bixinaysa over oo maartay dhaqaaleyn dheeriya بعتانك يا بلوضي سدوا إيش يبي إنجنير محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمال الدين وكسوة بيرمنغهام السلام يا عبدولي دماتين جمال الدين وكسود وين جمال الدين برنامج كمال سعودي وانا دكتور كلا سعودي روكي وحويا وانا راح نبنينا عن يدين مع هذا نقورتي دماتين
ما شاء الله ما شاء ما شاء الله، الله ما شاء وكادنا كما نقينا عاوش شركة فرقان waxay bixinaysaa over in meeshii 1500 ay ku qaadayeen in dadka ay discount u sameeyeen ziyaada ah ay leeyihiin 300 waan maqlayay waan runtii wax lagu farxan weeyaan markii hore waan kaga faa'iideysanay taas laftigeeda anigii xaasku oo waan raacday فرقان baraacday miya marka waxa weeye marka kulli cabduudi waxa jeclaan lahayn in hadana runtii خير كافرة بدل درتينا وادنا وقف فايديسنا runtii insha Allah ilaahay noo sakhiro marka dambana waata jamaalo hal su'aasha u dambaysan ku diinay ka waran service-ka lagu qabtay dabcan maadaama aad tahay macaamiisha furqaan raacdo wallahi waxa weeyaan service-ku waa mid isagiyo runtii ilaahay ku xidhnaa si aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aanan soo koobi karin aniga xaasku runtii ma hadda uu ugu leeyahay Abduli iyo sharafta uu noo qaabilay iyo sida uu noo bixiyay sidoo anaga quraanta maahe dadkiina la socday oo dhammaantood runtii macnaha uu qof shakhsiyan uga warhayay oo qof kastana uu qolkiisa ku booqanayay qof kastana uu ogaa xaalkiisa marka runtii mahadnaq waxa weeye qofka bini'aadamkii mahadiisa waxba ma sheegto laakiin waxa ka wanaagsan runtiisa ilaahay baa u mahadnaqayo ogna runtii gudihiisa xaaladiisa og siduu dadka u qaabilo iyo siduu dadka ugu shaqeeyo ee ugu ما شاء الله ilaahay dadka wax ugu sameeyo إلهكم بركة جمال الدين أو معاميش فرقان أو راعي إلهي سبحانه وتعالى أنا هبركة يوحنا أمهد علي شركة أو معرفة أولها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع عاقي مش أنا سوى عيس أضو ماتسن ها ولا السلام عليكم ما لي قد بيه والنبيلة ولا على بيمك هم كسر الله هاي النبيلة إن عاود برنامج كمال سعودي فرقان شركة فرقان يكون بحنيسو مقالين ديريا تبارك الله ولا الوان السعودي إلهي waxaan uga barayaa shirkadaas ilaahay barakeeyo oo bulaaliyo ma sha Allah tabaaraka Allah horena waan u raacay walaalo ما شاء الله سنة كان رعد sanadkii waxaan raacay 2017kii 2017 service-ka iyo qaabkii shirkadda ay ballanqaadkii ma lagu oofiyey wallahi ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan filim baan helay ma sha Allah tabaaraka Allah Abdul Allah barakeeyo Allahumma amiin dadkii ka faa'iideystay offerka waliba iska kaxeeyay baan anigu ku jirnay offer ba mayna waba iska kaxeeyay baan ma noo maanan lahayn ilaahay dartiib noo waday wallahi Allahu akbar Allahu akbar ilaahay ikhlas oo dhig هذا ما صنتها النبي ما شاء الله وندعي سنة كنا كهدنا إن شاء الله ما ربنا ما كيف إله آمين إله ينصر آمين الله يدين بركة النبي آمين ولا هاي ولا الله إله يدين بركة عبد ولي آدم نقول دعيتها حسوسنا هذا قلبي جينا ولي جي كم بحوا والله أبا جزاك الله خير جزاك الله خير نبي جزاك الله خير ولا الله بركة جزاك الله خير نبي واتهاي إن إله بركة عبد ولي هاي إن بل نوت محاو كودي رياتي إن إن أتصل discount كان والله dad badan oo waxaan arkay maadaama umradii hadeer ii sheeg waagii hore dadka umrada way iska aadi jireen hadda saa ogtaa sharciyo badan baa soo baxay oo ah qofkii umro mar aado mar labaad haduu aadayo 2000 oo riyaal inuu bixiyo 400 meelaas marka sida waxa igu dhiiriyay dad badan oo ii yimid oo igu dhahay niyo umradii waa 2000 waa bixinaynaa ma aragtay xoogaa bareyskan raqiisan baan jeclaan lahayn marka maadaama caaw TV-ga aan imid waxaan isiri bal ilaahay ugu dhawow umadaas ma aragtay bal ka faa'iideyso lacala Allah qof intuu xaramka tago oo intuu raqiis umrada caawa ku helo ku soo duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhira kulli injineerka wuxuu sheegay in khadka lagu salaam alaykum raxmatullah alaykum asalaam walaal soo dhaw magacaaga iyo meesha anaga soo wacis magacayga waa Faatuma waxaan ka soo wacayaa London Faatuma caawa barnaamijka ma la socotay aad iyo aad walaalo haye maxaa tahay customka caawa qaadan doono inay umrada sanadka 2018 bisha 12aad ee furqaan qaadayso ma overkaas ka faa'iideysanaysaa insha Allah walaal saasan jeclahay ma sha Allah waxa taa qofka ugu horeeyay oo jaaniska ka faa'iideystay Faatuma ayaa lagu yiraahdaa Faatuma xirsi ma sha Allah Faatuma xirsi toosa markii oo barnaamijka baxay lambarkaaga injineerka maaragtay laga qaadan doona marka mee qofaatiin ma kaliya misane walaal ani walaashay adiga walaasha ma sha Allah aad ma santahay Faatuma hadda ka hor xajkii umra ma tagtay
baa ka baxday faaduma baa ka go-ay ما شاء الله كل قف الله لقف كفاية سنة عاو جانس شركة فرقان أي بحسي ذاتك مع ميشة فرقان نعم السلام عليكم ورحمة الله تلفق بيزي ولا يجري هاي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم هذا السود وحا كلها الله وحان ربو يقف كلها دوكما وحا صوع ما مغلس هذا سوى عم أكون مغادر السود وحسبته سأقول ترتيب اللي عبد النور حاشم بوتان مركاينا كغيب غاتان وهدي هي يقود بنشان هذا ستة سأقول جرتا وعلى مغليا يعني تيجي كرسة كسودو السلام عليكم ما مغلس أنا عبد الولي يا أحمد سوى ناكسة ما أكون مغلنا وين السلام يا لبدينا بأيو ضمان شغالها كسر تي في او آد arrimaha bulshada Soomaalida waa shaqeeya ma garatay si wanaagsan ma sha Allah awala waxa Allah yaa mahadle waxaan si aad idinka mahadnaqayaa caawa fursadaad ummadda Soomaaliyeed aad u siiseen iyo qiimo dhibista aad ku samayseen caawa cimradii aad baan soo dhaweynayaa ma sha Allah aad markaan ka gudbo anigu hadda ka hor حد عمرس كتير تيا كبرجع عبد الولي وهالكان برمهان بعدين هاي ونهك هاي تبضل من نجوع واضح واقرت حد وحي الصور كي ورجع حد كوامركي وهريي وحن مغلط تري وعدب يقحر يشدم ميرا ويا ذلك كمغلط تري واضح ومرك عدو وحلا يصير البخوص هو يا جماعة ما يد أروح وحام يصير وابدل حيث حجب معهن مركي يصير فهمتي محام صوت وحاهي هذا وحن صور وحن كهستي وحن صور كمان سلهاي واضح سويت وحويه مدينة مالتها جدا وكندقني وحن كهر من مدينة نيل كسوه جيدا هوتيل سمن استارة او تم مساجد كسوه جيدا بان يا هيبان كسو دغني قراعه بالاسكدا مردا صبح قراع فرسقده وما باهني مساجدكي ساعد walba ku tukanaysa waxaan loo dheeraa inta xataa meel geel oo caano geel laga dhamayo iyo hilib geel intaasna waa la geeyay waxa inta ka dheeraa waxaan la soo wada mariyay dhammaan wax allaala wixii خيرات نبغو تجي هديتها أصحابي ولوسياتو مساجدي هديتها وتقف تجمع قف كله ما شيء كانوا تام مدينة يا حي ما شاء الله هي مكة ضد بدن ولا صوع يعني كانوا نبينا هدي لقى ما شيء كانوا كعبة صرت أبو بكر صديق ما كان ما قال شيء هدان خلدني ساعد كسر جد صرت هداه واضح بانكسر بنقول شيء خير الله سيو كيبا وابا كبري مساجد بي هوس نوغو لهدهي غوريغا سماعدي با laga maqlayaa hotelka masaajidka ama kacbada ku tuka ama hada iimaanka waxa kala xidhan kada masaajidka dhexdiisa hotelka dhexdiisa marka iyaduna atin kale cajiib ilaahay ma sha Allah marka waxa leedahay waa ka sii socono markaan u tagnay meesha la yiraahdo Mina waxa ka daraa waxaan islaahay halkaas dad badan oo rafaadsan oo caalamka ka yimid baan u aragnay annagu markaan teendada nala dejiyay iyo waxaan loo dhigay yaa waxaan cuntada qadada oo iyo quraacdii iyo cashadii saacad loo ku keenay ma sha Allah adoo soo koobay camo waa ka baxaya waxa noogu jira markaan tagnay meesha la yiraahdo Arafa iyo sidoo kale ahay inta waxa ka sii daran serviska kaliya iyo dadka ninkaas uu dhaqaaleynayo iyo qofka Cabdiwali lacagtu markay ka go'do uu deynta siinayo marka dadka waxa lagu bishaareynayaa wariye dhamaantii qof taga oo Cabdiwali iyo furqaantiisa qof raaca qof kale loogama sheekayn karo dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada anigu hadda xadka laba qof baa igu dhignaa cimrada ogaa aniga hawli ugu yimid baa dib u dhigtay laakiin caawa waa ka xanaaqsanahay fursada yartaa oo dhaxaftay marka dadka waxaan ugu bishaareynayaa ka qayb qaateen idinkana waxaan idin leeyahay jazakumullahu khayran Allah ku barakeeyo walina madaxaaga Allah raajiyo leenahay ahmed adiga laftigaagu waa ogahay waa ka qayb qaadataa
khayr baa idin rasaynayaa barakeeyo, Allah iyo ku ka barakeeyo. tasiifiyo iyaguna ka mid ah dadaalka ummadda bulshada soomaalida aad iyo aad arrimaha bulshada uga shaqeeya way salaamaya الله كبركي الله كبركي ما شاء الله تبارك الله dad badan baa khadka si toos ah ugu jiro cabduuli oo adeer cabdinuur suu ka dhawaajiyay hilibka caadi geeri hilibkan waa laga rabaa dadka day ku raacaan ما شاء الله taasna meel ku qor insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام Sheikh Ahmed. Yes, mashallah, dear brother, highly welcome. How can I help you? Alhamdulillah, my name is Naeem. Sheikh Ahmed, I've traveled with you before. Mashallah, Naeem, bye, mashallah. How are you, dear brother? How are you, Sheikh? I'm good, and you, how are you? Alhamdulillah, alhamdulillah, kulli hal. Very good, mashallah. Mashallah. Today, this night, we're gonna, Furqan Travel, they are doing over. So, will you like to share any idea? Of course, I'd like to share my experience. Okay. Oh, thank you. Go ahead. When I traveled with Furqan Travel. Okay. And I would just like to give a nice little background of how my journey went and how the service that Abdul Wali and his team provided for us. Okay. Go ahead. So Alhamdulillah, I've been traveling with Furqan Travel since 2014. MashaAllah. I'm originally from Pakistan. I've never ever traveled with Somalian people before. But mashallah, when I traveled with this group, Furqan Travel, the service that Abdul Wali provided for us was so great that the following year, in 2015, I told my family about him, and my family said, okay, we'll go to Abdul Wali. And Alhamdulillah, in Easter time, we traveled with them with my kids, 3 of my kids and my wife. And it was such a great experience, mashallah. Abdul Wali, he puts his guests, his hujjaj, before everything. He sacrificed so much for my family. And from that day onwards, I've been, alhamdulillah, traveling with him every year. MashaAllah, I've been Hajj with him as well. And I made a promise to Abdul Wali because of his generosity and because of the service that he provided for us, that inshallah one day, I'm making dua to Allah, that inshallah we're gonna make this Furqan Travel company, we're gonna bring in so much Pakistani people in and all the other people who have read La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, not only Somali people. Because when we travel with these people, the way they welcomed me, although I was Pakistani amongst all Somalians, they didn't make me feel different, they made me feel at home. And the service was so great. Even with yourself, with Sheikh Ahmed as well, he's such a great Sheikh, mashallah. Any questions we asked, alhamdulillah, he gave us the answers to us. He was willing to help all the time. Brother Abdul Qadir, alhamdulillah, all of you. So I always make du'as and I recommend everybody, inshallah, in the future to travel for Furqan Travel. Abdul Wali is, mashallah, he's a great role model for other group leaders. Because when he goes out there, I've seen him work, and he used to work some days 19 to 21 hours a day, and this is no exaggeration, because I stayed in one room with him one day in Hajj, and he was out of his room for 19 hours. MashaAllah. 19 hours in a full day. Thank you. He only had maximum maybe 3 hours sleep. MashaAllah. So may Allah reward you, brothers. May Allah subhanahu wa ta'ala give you the ability, the means to take Hujjaj every year to Allah's house, inshallah. And great people. Mr. Naeem Bhai, really, I would like to appreciate you, by the way, and also Abdul, would like to thank. So let's listen from Abdul, inshallah ta'ala. Go ahead. Assalamu alaikum, brother Naeem, you okay? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. How are you, Amir Sahab? Alhamdulillah, brother. Thank you very much for your comment. And I know even we are aware as a Furqan Travel, you are traveling with us in December group. And inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala written for us the trip. Inshallah. And thank you for your experience. And I appreciate and also passed my salam all the family, including Sumaya and the kids. And Jazakallah khair for your time. This is our duty of the Wali, because we have to pay you back, because the service that you gave to our families, it was unbelievable. And alhamdulillah, every Pakistani person that has traveled with you, since I've traveled with you, that's all they mention. They says the service that he gives is unbelievable. We can't believe sometimes how does he get the energy to do what he's doing for us.
جزاك الله خير نهيم. So my brother, I always make du'as, and even my parents are always making dua for you. Thank that you. Allah subhanahu wa ta'ala gives you success in this life and in the hereafter, and Allah subhanahu wa ta'ala keep on making you go to Haramain year in year out, inshallah, because you're a very honest brother, very honest brother, mashallah. جزاك الله خير نهيم. I'm saying this from my heart, my brother, from the bottom of my heart. Okay. Naeem bhai, thank you very much, and also we're expecting from you this year you to bring for us clients from your community, inshallah ta'ala. Jazakallah khair. Ninkaas wuxuu ka mid ahaa Naeem baa la yiraahdaa, wuxuu leeyahay waxaan raacay 2014 ilaa iyo hadduu shirkadda kusoo noqnoqonay xaqiiqatan wuxuu yiri waxaan dareemay wanaag fara badan intaan la socday kulli Cabduulina uu u mahad celiyay marka ilaahay baa ku mahadsan waliba waa nin xaqiiqatan iimaankiisa aan aad iyo aad maartay ka aragna qof aad u khayr jecel oo waliba jecel Soomaalida. Assalaamu calaykum raxmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal soo dhow waxaa si toos ah ugu jirtaa TV-ga Kalson TV barnaamijka caawima la socotay ها وأنا سعدها. haye ma waxaad rabtaa inaad ka faa'iidaysid fursadda ay Furqaan bixinayso misane ها وارع الفرقان. waa raacay Furqaan miya ها وارع لها. magacaaga صفيو. Safiya hadda waxaa la bixinayaa discount gooni ama dhaqaaleyn gooni ah ma ka faa'iidaysanaysaa marka insha Allah ها سنة كان ورا بالله إنك فايدته. ما شاء الله ما قفاتين Safiya محل ما qof hadda aad rabtaan kaga faa'iidaysan kaliya ama laba qof aatiin saddex qof afar qof أنا جاي وراك. adiga walaalka ma sha Allah ها وراك يا محرم يا هان. walaalka maxaa ma sha Allah si khaas ah mardan markii laga baxo barnaamijka ay kula soo xiriirayaan shirkadda Furqaan waliba khaasatan maamulayaasha adaa ma say Safiya محل waa ma santahay way ka soo wacayaan markii ka barnaamijka dhamaada si gooni lagu soo wacay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله تلفونك لا تلفون أد بيزي وأسوي شيء إنجنيرك السلام عليكم ورحمة الله waxaan codsanayaa qofkana soo waca insha Allah tacaala hadii uu rabo inuu iibsado inuu si toos ah nagu sheego waqti aan السلام عليكم ورحمة الله هلا السلام عليكم وعليكم السلام walaal meesha naga soo ciise magacaaga adoo maadsan walaal Umma Ciisa leedaha Umma Ciisa barnaamijka la socotay ya walaal barnaamijka ma la socotay barnaamijka waa la socday laakiin waxaan rabay inaan weydiiyo inaan Furqaan travel mudiirka maadaama aan rabno December kaanit umro weydii ku maqlaya umrada ugu horeysa gormay baxayaan Cabduuli ay ku maqlayaan umrada ugu horeysa Ciisa waxaa la baxayaa December 18keeda waana midda offerka caawan u sameeyay dadka ku xiran barnaamijka bara saxaabi umradaas waxaa lagu iibsanaya 1500 laakiin caawa qofkii fursadda ka faa'iideysto ayadoo ah waliba 5 star umro waxa uu ku qahelayaa caawa 1200 meeqa habeen way toddoba bari Madiina toddoba bari Makka including ziyaaraadkii hotelkii diyaaradii breakfastigii wax walba ku jiro waan hotelka meeqa star way hotel 5 star way Makka waxa la tagayaa Infinity Madiina waxa la tagayaa Zamzam Bulman ama jiwaar Saqifa Infinity inta u jira iyo Makka Infinity wuxuu ka dameeyaa saacada gadaasheeda ayuu ku yaala dariiqa la dhaho Ajiyaad wuxuu ka soo horjeedaa funduq la dhaho Shuhada qofkii yaqaan waa hotel cusub oo 5 star ah ilaa 7-8 daqiiqo u jira xaramka quraacdi baa ku jirto waxaana la joogayaa hotelkaas 7 bari oo ma aragtay ka bilaabato 26 December 27 28 29 30 30 maalinta kowda New Year loo yaqaano ma aragtay waxa la aadayaa ziyaaraadka oo dadku waxa lagu soo wareejinayaa ما أنا تقارو حرا بالجينيا جبل الرحمة لجينيا عرفات منى مزدلفة ضيع تركي كله واضح ما شاء الله ما يواو ولا ما يقف هاتين إن شاء الله شن عروش أبي هويو تضبط مركل لبا عدل مدام اللبا عدل شن تعروش حنا لقدي بكرة بلا إنفنتيجا والله بقول كنتم باوعي caruurtana maadaama adinka la idinku siiyay 1000 iyo ma aragtay 200 awal waxay caruurta ahayd 1000 iyo ma aragtay 400 dadka weyn 1500 caruurtana 1100 la idinka siinaya insha Allah biin Allah taala marka cunugu weyn 12 jir ilaa iyo 5 jir marba haduu caruuriya insha Allah 1100 baa la siinaya laakiin maadaama 7 qof aad tihiin qolalka Makka iyo Madiina waa qol afar ugu badan sidee rabtaa in aad wada degtaan ما معناه ما دام إنفنتي أو ضتان مقول أفر أو دقيسان مسقول صدح يقول لبا قادر إنسان
ما يقول أفر ما دام يجرين أحكام حلقات لما لسه خاصة هذا قل أفر هذا قادنا يسان إن شاء الله تلفونك حفيزك مسكوشي يجي كذا يوحي مسكو يا القلق ها مسكوشي وكنت الله هوتيلك جيكا هوتيلك جيكا ملهن وما دام 5 ستار ويا أنت هوتيلك لقى عنايا لكن نمبر هذا نورب أم عيسى أنك كسوع عينه إن شاء الله ما نمبر كان هذا ويا الاستوديو مايا نمبر كفرقان ترافل وحقوق قرية إنجنيرك إن شاء الله اوكي ان شاء الله جزاك الله خير annagana waa ku soo wacaynaa nambarkaada u qor injineerka insha Allah السلام عليكم ورحمة الله قفك على أخذ كجرو السلام عليكم ورحمة الله واتهاي ستوسا قفك كجرو إنجنير كأسيا نوصل حيردون إن شاء الله تعالى كل عاوة جانس دتك أباهن إني عمره صارت كان بحان لبض كون طبعا إسديدة خاصة بشان لبي طبنات السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام في عنا ولا في عنا مقعة الحمد لله أنا محمد عبد الله بن يا مقعة إذا مسؤول كأهن أي مقعة دبل مقعة إيش يا جماعة مصر آمنة محارب تعاون كفايس فرصدان محل هذا فرصدان فرقان بحين عاون ما كفايس نساء ها عوضة في سنة أوكي مو إنا بحلان ربط عمر آدان ها عمرنا أنا ربنا ما يقفاتين وحنا هاي أبيك ليح قف ليح قف مركب محادد وين محادد يريره وحنا غير 8 سنة جير وحنا وين أبيك كونتنيشن لما وين 6 مركي عن برنامج كبحنا وحكوا لسه حرير دونه تلفون كاجا إنجنير كاج نقول ربي إن شاء الله تعالى مامولها شركة ده خاصة كوسوي دون هذا وما صنتهاي إن شاء الله وما تنتهي هذه قبل ولا هاي كل عاوة جانس عندي كفاية سنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام سولو ولا من مغلسة سيفي عم بقوم مغليا ولا مقعة واحدة محمود محمود عاو جانس كان 100 كفاية سنة سايب بحيث فرقان أنا أول سؤال بقولنا ولا أنا متشوغو UK واحد شوغا نوروي مركا مدتك وكل شيء UK بس مركز توفرية والسؤال هذا وناكسن ستة صحنو ودينا ملكي لها شركة فرقان عبدولي walaalka haddii uu joogo UK qofka uu European yahay oo wadankan uu degan yahay oo baas ma aragtay wadankan uu ka shaqeeyo ama uu ma aragtay wax ka barto dadka UK degan ayuu la xukun yahay laakiin qofka hadduu Norway joogo kale safaaradda waxayna weydiinaysaa caddayn in qofka baasaboorka European-ka haysto uu wadanka degan yahay marka hadduu qofkii wax caddayn heli karo offerka ku jira ما شاء الله ما فهمت ولا محمود ها سيفي عبانو فهمي ولا لاني هذا متشوغ يوكي كمان شقية واحد شوغا نورو لكن جانس كاد بيقول أنا دي وما سيتين لمبر كاغن إن شاء الله تعالى waxaan kalo maxamuud waxaan kalo ku sameyn karnaa maadaama Norway aad joogtid waxa ka go'ay maxamuud السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله شيخ أحمد ما شاء الله لسؤال مقعية أبو ماسن أحمد عبد الله لله أحمد عبد الله ما شاء الله عافى سؤاله والله هو عاو فرصة اللي يكفى إنسان سامس فرقان ذاتك واحد كم يهيد راعي مثل فرصة أنا عاو أدينا ما رتي هبت أنا كفايس ذاتك راعي بانها 2007 ما شاء الله 2007 هاي مركا والله يا شيخ عبد الولي يا بان والله والله ما حدنا قياوة ما شاء الله وشيخه سفي عن أيام أيو نوسو دويي سفي عن با يعني عمردي الحمد لله وحن كانوا ورنا شيخك تليفونك إيقظ ما شيخ أحمدو ما شاء الله أحمد عبد الله هذا هو قرتي عدك أيوان ما شاء الله هذين يعاودن كسع أي والله تليفونك إيقظ ماي أنا جي عبد الولي وصعنو دكتورك أبوينمنتا أنا أقول إيه بيك هذا واحد أنك فايس مشاس والالكاس أنا للسعودي وحونها ولي وقف مركز إلهي سبحانه وتعالى الشعب كنا للسعودي وكذا الدعاء خاصة حتى الدعاء إلهي نكوا قبلنا وضع وقوم بشارع إن شاء الله كسر ما شاء الله الدعاء إلهي ويقبلي مركز شيخ أنا وضع صعنا تليفون كي قالوا ماي مركو تليفون كي قالوا ماي شيخ عبد الولي ويجت تجي كسر والله مغلي كسر ساعات بعد بويك يعني تليفون عصب وسدو ما شاء الله مركز شيخ وحوي والحمد لله رب العالمين شيخ وح وقاقات وسوع علنا ما شاء الله ان واقف تاس وإله خلاص وغير أصلا ميزانك الله وصار ان أنا أرجع للدعاء
bal ummadda aad ka dalbatay oo maanta ilaahay ku aqbalay waama binicmati rabbika faxadis wey haye maxaad kula marka waan raacaya insha allah 18 hadii ilaahay ka dhigo waad raacaysaa 18 miya ما شاء الله ilaahay ha ku barakeeyo axmed cabdullaahi oo xaqiiqatan markaan leeyahay ducadii walaalkaas ilaahay subxaanahu watacaala kilihiisa kamid a ka maqnayd ducu dalbaday xaramka loogu duceeyey markaan soo noqonay wuxuu yihi axmedow kili baan helay ما شاء الله marka taas ani aad maaragtay aan way xaramka qofka loogu duceeyo ahaa oo si khaas ah shacabkii maaragtay ummadana la socotay ugu duceeyeen ilaahay subxaanahu watacaala wuu waafajiyey ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله halo asalaamu calaykum وعليكم walaal magacaaga iyo meesha anaga soo wicdo maadsan walaal magacayga waxaa la yidhaha maxamed macalin cabdullaahi waxaan kaa soo wacaya wadanka holland maxamed macalin cabdullaahi oo holland joogo hu qaatid khaadat elquud ما شاء الله yes soo dhawo boss barnaamijka caawa maxaa kaga qayb qaadanaysaa waxaan ka qayb qaadanaya waxaan rabay waayo-aragnimada shirkadan furqaan travel aniga inaan la qaybsado shacabka intiisa kale ما شاء الله سؤال في عن واي aragnimada ilaa marka ay isku soco ha marka waxaan rabay inaan la qaybsado shacabka intiisa kale shirkadahan safarka magaca bay ka sameeyeen yihiin laakiin shirkada furqaan travel waxay aniga aan ka maqlay inkastoo aan weli la safrin oo aan damacsanaa mustaqbalka aan la safro iyo shirkadii hadda ka hor xajka markaan tegay aan kala kulmay farq weyn oo dhaxeeya nimankani waa niman sida aan ka arkay dadkii ku safray ballanka ay sameeyaan ka soo baxa ما شاء الله ما شاء الله صح وجزاك هي marka waxa maada marka adigoona bixin ba ayaa waa lagu sheegay wadna amintimiya saasa lagu sheegay badana qaanuun ku kalsoon oo aaminsana ay sheegay dad kalena maahan ilmo anigu aan dhalay oo wadanka ingiriiska degan ayaa nasiib u yeeshay shirkadan ku safraan marka waxay sheegeen markii ay diyaaradda raaceen ilaa ay ka soo laabteen in hoggaanka si fiican lagu hayay oo marna destiny-gooda aan faraha looga qaadin sida marmarka qaarkood nasiib darro dhacda hogaankii lagu waday ayaa lagu soo celiyay nasiib wanaag oo nabad qaba si fiican u soo cibaadaystay ما شاء الله محمد ilmahada magacood ilmahayga waxaa la yidhaha gabadheeda safiyo ayaa la yidhahdaa safiyo maxamed macalin cabdullaahi waxay degan tahay magaalada la yidhahdo birmingham ما شاء الله safiyo aad baan u garanayaa ما شاء الله ما شاء الله waka ilaahay ha ku barakeeyo maanta caawi taleefankaas inaad usoo gashay in aad ma aragtay wax aad qofka bini aadanka ah waxa ka maqasho oo wanaaga inaad sheegto waa muhiim dadkeena ma aragtay Soomaalida aad bay ugu fiican yihiin adigoo waqtigaada qaaliga ah Holland joogo taleefan Holland ka soo diray lacag kugu ah oo ilaahay waxaan ka baryaynaa fi miisaan xasanaadkaada inuu kugu daro ilmahaadana wax wanaagsan bay kallay ka arkeen shirkadda ayagana ilaahay ajri xasanaadka ka siiyo annagana ilaahay naga dhigo kuwii dadka sidaas si ka fiican ugu khidmeyn lahaa ما شاء الله هذا ما سنتهي qiimaha laftiisa waa qiimaha aad ugu qancay marka waa kaas جزاك الله خير جزاك الله aad baan u mahadsantahay sheekh maxamed ilaahay ha ku xafido meeshaan ما شاء الله aad u mahadsantahay walaalkeen oo naga soo wacay dalka Holland السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا soo dhaw magacaaga iyo meesha naga soo wacays وهذا ولا الله مقصودين نعيم حج محمود علي لها بمها ما إذا كسر وعيا هاي النعيم عاود جالس كان أو فرقان بحسميات كفى سنة إن شاء الله وجعل عنا كفائدة هرين أو كفائدة شركة الفرقان ترافل أجنسي ما شاء الله واللوبري ما شاء الله عبد الله عاوز يا رب الله يستاهل ما شاء الله عاملهم ما شاء الله وياه ما شاء الله ولي وأمها علينا كل بس أوجد لا أنا مبود أبار إليها أوجده الله أكبر ونحن على ذلك من الشاهد ساس وهذا ما سنت النعيم حاجي قر مرة على سنة كه وكم بحضي نعيمة نعيمة 2018 كبير واحد صامي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا للسود ومقع مش أنا قصو عيسى أديو مارسن waxaan ka soo wacaa magaalada Birmingham magacaygu waa Axmed Cali marka shirkadana daleynaa inaan raaco December package-ka marka waa kaas meeqa qofaatiin marka afar qofaatihiin aniga carruurtayda saddex yani carruurtaada marka carruurta ma dad 12 sano ma ka kormareen ya 12 sano jir ma dhaafeen ilmaha da'dooda ما شاء الله ما خلاص هذا كور مرة على مسوا فرقد شركة عروتي راعي عروتي يا جماعة كده 2017 هذا لو عاود جانس كان مركب مقش كيف أيسن سامية جانس كان كفاية السنة هذا قدامنا إن شاء الله
marka hadda Decemberna waa ku tala jiraa inaan raaco insha Allah ما شاء الله تلفونكaaga telefonkaaga hore oo raaci jirayna way ka wanaagsan yihiin الله ku barakeeyo magacaaga salaad waa Soomaaliin Sareebe Axmed Cali telefonkaaga insha Allah injineerka ka reebay aad u maasan tahay jaaniskan caawd dad badan baa ka faa'iideystay waa maasan tahay sareedo Sheekh Ahmed Allah ku barakeeyo hadda almost anaga dadkii aan السلام عليكم ورحمة الله والله علينا السلام عليكم السلام ورحمة الله هاي soo dhawo ودوهاي waxaan rabnaa insha Allah inaan aado soonka hadii naftaydu gaarto ibro هاي hooyo maama magacaaga ii sheeg adoo maasan hadii uga tarambi حديه miya H A هاي D I O حديه ما شاء الله telefonkaaga kullay injineerka aad u reebi doontaa insha Allah taala aad baa umasta marka waxaa rabtaa ramadaanka miya hadda waxay bixinayaan shirkadda waxay bixinaysaa dhaqaaleyn bisha labiyato cabdullahi ramadaanka ka war qiimo dhimis insha Allah biidna Allah taala ma maxadii hadii telefonkeeda reebto ramadaanka laftigiisa baakajka dadka ugu horeeyo waxaanu siinaynaa qiimo dhimis sida daraadeed ma maxadii maadaama caawa ay ka faa'iideysatay oo barnaamijkan bar saxaabi ay soo gashay de kulay shafaacadii waa leedahay discountigiina waa loo sameeynaya numberkeeda injineerka u reebto isniinta la soo wacaya biidna Allah taala ma sha Allah isniinta ilaa ma rasac guri inaan kala waaye isniinta ma maxadiyo xafiiska wuxuu furan yahay subaxii 10 subaxnimo aroortii ilaa iyo 6 galabnimo inta u dhaxaysa soo telefoon u soo diraysa waxa leedahay ma maxadiyaan ahay habeen dhawaato TV-ga kalsan ayaan Cabduwali iyo Sheekh Ahmed ka wada hadalnay sida daraadii hal ii gudbiyo numberkiina waa ka halkaas ku qoraya ka soo wac numberka xafiiska shaashada kugu qoraya haye ilaahay ha idin barakeeyo amiin ma maxadi Allah ku barakeeyo adiga numberkaada yani waligeed ma ka cimro kama aadin oo soon halkan marka waxaa rabaa inaan ogaado qarashkii laba qof ay kacaynayso wiil iyo gabar ay kacaynayaan saddexna numberka ma ku qoraa mise shaashada uga jeeda waa qoranaysaa ma maxadi waa u jeeda waa anaga ka soo wacnay الله كبركيه نمبرك أصو وعدي ونمبرك استوديوجا لكن نمبرك حفيزك وكب بدلني هذا شاشدو ها نمبرك حفيز حفيزك كوا كان كرا ها كان كرا إبر أوفيس أكو قرنها قرنالي ها أوفيس كبيت قرية حواي 1 2 1 ها 7 3 1 2 3 وكاس ماما الله كبركيه هاي إذن كان الله إذن بركيه وبابا بركيه تنتي الله كبرك يا إمام حدي الله كبرك السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير وسلام السلام عليكم ورحمة الله تلفون هذا دمنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ولا السود ومقعد مش أنا قصو عيسى أديو مالسن هذا المحن ساهر يقول علي ولا له مقعد مقعد يوسف قاسنا يوسف قاسنا أن معاود جانس كان ما كفى سنة شركة فرقان هذا وحان ربا والله وحان ربا ماشي في عمان دبيتان هاد ام بافوري وحان ربا أرنت حجك متى waxa laga hadlayo ما شاء الله waxaan ka hadlaynaa umrada sanadkan 2018 shirkad la yiraahdo Furqan Travel oo dadka qaadayso marka waxay sameeyeen dhaqaaleyn laakiin hada xajka u socotid wali jaanis ku furan yahay hamay waxaan rabaa waxa waaye waxaan rabaa waalideentayda oo laba qof dhimatay aabba iyo hooyo in la iga xajiyo shuruudaha la iga xajinayo iyo dhaqaalaha inaan helaa rabaa nimale lambarkaaga hadda noo qortid waa laga qori hadii kale lambarka si toos ah shaashada oga daadad noo qortid waa ka qorinaa noo yeeri lambarkaaga nambarkayga waxa waaye aniga Sweden joogaa waxa ka qorayo injineerka ka qoray insha Allah injineerka si toos kaaga qoray insha Allah injineerka lambarka ka qor doono dhiman insha Allah waqti aad noogu yar marka injineerka ka qoray lambarka insha Allah aad u maasan tahay السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ولا السود ومقعد مش أنا سوى عيس وأدوه إن شاء الله مقعد مش أنا سوى عيس مقعد ما ده اللي ما ده السود برنامج ولا سعودي ولا سعود وان في السنة هذا وهلا ما شاء الله هذا في عيني هاي البرنامج كان دنا وحنا مغلى العقد دنتين بروباك سيريدين المغلى هاي
marka waxaan isbalaad ka qayb gashay hay ma had ma keligaaba mise caruur iyo famil baa tihiin famil caruurana waa badannahay hay meeqa qof tihiin maama waxaan nahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan nahay ilaa 7 qofood 7 qof aad tihiin marka waxaad samaynaysaa insha Allah tacaala injineerka lambarkaaga kaa qori doono si khaasan ku soo wacayo maadaama caawa discountiga iyo dhaqaaleynta ay bixin shirkadda Furqaan 7 qof ayuu ku qortay meesha marka waa lagu soo wacay si khaas ah lagu soo wacay maama dheh hadii la ilaahay insha Allah magaalada joogto Birmingham Soomaa برنامج جوجها الله كبركة الله كبركة بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الهي شيخ أحمد الله كبركة كل عاو أنك كراستي أو قلت لك قلني إن أنا ما أرتدتك لو ذا جنو عن سين قيمة جبنتها الحمد لله وحي هي تصدن إيو شان كرسي بهي الحمد لله مال تضبقفه قبل دي كوفنتري كسو هذا ليسي قبل كلا وعامل الله برمين كسو سوى ليه قف صدحي طبعا أفر قف هذا كودرتيت تضبيه طبعا وحا كودريسا ما مديه هذا سو هذا الشيء أو تضبقه وأفر إلى بعضهم لكل كراستي أنا قلت لك العاو صدن إيشانتا كرسي أهيد مركا أفر إلى بعضهم لقى جويو وحا هريبا سجال كرسي بحري marka sagaalkaas ilaahay cid ugu talagalay hadii ka faa'iideysto alxamdulillah waqtigan aad buu noo hayay barnaamijkaadi caawa waxaan u maleynayaa ardaydaadii dad badan baa ku jira caawa ardaydu waa dhaafeen waalidiin bay u gudub baash oo ka faa'iideystay marka alxamdulillah anaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha nooga dhigo maaragtay barnaamijkaas bara saxaabi maadaama aanu ofarkaas aan u sameynay anaga ilaahay subxaanahu wa ta'aala fi miisaan xasanaadkeena ha noogu daro dadka walaalaha oo soo hadlana ilaahay ha u qadaro inay xajka inay tagaan xaramka in xaramka qof kasta iskama tagi karo ilaahay qofku uu qadaray un baa tagi karo su'aal baan ku diinay Cabduuli oo soo gabagabeyna barnaamijku waa naga gabagabo waxaad ballan qaadeen wala anu waraac shirkadda Furqaan alxamdulillah oo wax badan waa ka ogahay dadku meesha ay degayaan marka la ugu celi inta habeen oo meesha la jooga magaalada Madiina inta habeen oo la joogayo Makka maalinka baxayaan maalinka soo laabanayaan الله كبرك شيخ أحمد باكج كان سيد عاوج دتك أيضا شاشة دك داولين وحلا بحياة سديدي طبعا كديسمبر حلا بحياة مقالة لندن إيربورك لندن هيثرو ديارة الراعي دون وجولف إيرلاين أما سيد لو يقان طيران الخليج أفك عربية ديارة داس وحيك بحياة لندن بحرين أي استاجسة بحرين أي اللي هي بحرين وحلا جوجيا 6 ساعات 6 ساعة كدب بحرين بديارة كدوليسا مدينة المنورة magaalada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayay ka dagaysaa waxa la joogayaa 7 maalmood 7daas maalmood magaalada la joogayo waxa ku jira maalmihii maalinta 22ka December waa maalin sabti ah dadka waxaan ugu talagalnay inay ziyaaraadka aadaan wata hal qof oo soo gabagabeeyna qofka nasiibka u yeeshay maadaama barnaamijkan aad soo gabagabeeyna salaamu alaykum raxmatullah salaamu alaykum raxmatullah salaamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حالة قفك أودا بنصيبك وياش إن جالسك أو سينه. وما سنتين خير الله كسيه waxaan ku weydiin lahaa su'aal ku saabsan xajka oo maaragtay ayaan doonayay inaan ku weydiiyo haddii alla ka dhigo dhimbale haye waxa weeyaan qof hadduu yahay qof weyn oo waayeela oo maaragtay aan socon karin oo aada qof waayeela ah laakiin caqligiisii uu qabo oo laakiin ay ku adag tahay yani safarka xajka miyaa laga xaji karaa ma loo samayn karaa in laga xajo maasha allah horta barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij kale oo aan kaga hadlaynay discount iyo dhaqaaleyn ee shirkadda Furqaan Travel Hajj Umrah ay maaragtay ay fidinaysay laakiin waa mas'alo diini ah insha Allah taala qofka ka soo xajinaya haduu soo xajiyay oo asaga xaj uu la yimid uu maaragtay waalidkiisna uu qofka yahay qofkaas haduu sirta saaray way banaan tahay diinta Ilaahay tabaaraka wa taala ku banaan tahay insha Allah tabaaraka wa taala laakiin barnaamijka caaw ka gedsanaa wax kale aan ka hadlayno xajku bar maqla marka sanad Allah ku barakeeyo Allah dhimal واي ما جزاك الله خير عبد ولي وقتي ما نهي دقيقتين ما نيسان هي 2 دقيقة شيخ أحمد الله كبركي سأو شرحنا maalintaas sabtida 22 December dadka waxaanu geyn doonaa magaalada maaragtay ziyaaraadka Madiina sida ogtahayna ziyaaraadka Madiina meelo kamida waa mashruuc sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu sameyn jiray waliba maalinta sabtida uu sameyn jiray sida shuhada Uhud inaan dadka geyno ay soo booqdaan meeshii dagaalkii Uhud oo ka dhacay masjidka la dhaho Quba
inay dadku kusoo tukadaan laba ragco masjid qiblatayna litaariikh aan usoo tusaynaa kadibna waxaan maalinta 26 December waxaanu geli doonaa safar oo aan ugu diyaarin doono dadkii inay maalintaas cumrodii ay ka xirtaan ma aragtay Dhul-Xulayfa ayagoo u socdo Makka al-Mukarrama makana waxaan joogi doonaa 7 bari sidaan hore u sheegnay 7daas barina waxa la joogayaa hotelka weyn oo la dhaho Infinity oo xaramka u jiro 7 ilaa iyo 8 daqiiqo hotelkaas oo quraacdii ay ugu jirto ziyaaraadka Makka ziyaaraadka Madiina way ka bedelan yihiin la taariikh dadka in loo soo tuso waay laakiin wax mashruuc sunnah ma aha maalmaasna waxaan geyn doonaa buurti rasuulka sallallahu alayhi wasallam qaarul xira baan geyn doonaa qaaru thawr bay tagi doonaan jabal rahma la geyn doonaa waqtiga aad yahay iyo Musdalifa waa la soo tusi doonaa iyo jamaraadkii waxaan la soo celin doonaa 2 bisha January 2019 aad iyo aad u maasan tahay Cabduweli Ciise Yuusuf oo ah mulkiilaha shirkadda Furqaan Travel Hajj Umrah oo caawa jaanis u siiyay ummadda Soomaaliyeed meeshii ay shirkaddu ay ka qaadaysay qofka si caadi ula soo xiriiro 1500 oo pound qofkii in caawa 1200 looga dhigay dhaqaaleyntaasna uu ugu talagalay inuu barnaamijkan baro saxaabi maadaama ay shirkaddu gadaal ka riixdo ama ay tahay shirkadda sponsor garayso inuu caawa jaaniskaas siiyo aad u maasta Cabduweli Ciise Yuusuf waana ma kaaga mahad celinayna qoftan qaaliga oo ummadda asiis jazakallahu khayr sheekh Ahmed Allah ku barakeeyo TV-ga kalsan caalamiga ah oo mar walba dadka waxyaabaha bulshada ay u baahan u soo sidaayo ayagana waxaan leenahay hore u sii socda ilaahayna hay'ad garab galo arrimaha wanaagsan waa inuu kulan dambe oo waan aan ku wada kulano subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tagaan waxay ugu talagaleen diyaarado toos oo British Airways London ilaa iyo Jidda kadibna la dejinayo hotelka weyn ee Grand Samsam ee ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantood